maanta waxaa magaalada Jowhar ugu soo booqday wafdi caalami ah oo uu horkacayay wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton sidoo kale wuxuu ahaa safiirka dalka Sweden u jooga Soomaaliya iyo wakiilka Madeira oo ah wakiilka qaramada midoobay African Union missionka Soomaaliya u jooga waxyaabaha ka wada hadalnayna runtii waxay ahaayeen guud ahaan geedi socodka howlaha doorashooyinka iyo howlaha la xiriira dhinaca maamulka cusub ee Hirshabeelle sidoo aan baqaali lahaa xaaladaha la xiriira dhinaca ammaanka xaaladaha la xiriira dhinaca rajada guud ee aan ka qabno inuu maamulkan ay u suuro gasho inuu shaqooyinkiisa inuu guto oo u dhaqaaqo marka runtii wada hadal qiimo leh ayaana dhex maray wafdiga ballaaran ee noo yimid maanta ugu dambeyntiina waxaan isku afgaranay in hadda howlaha doorashooyinkana in la dardar geliyo oo ay qabsoomaan xuquuqdii ay dhinaca haweenka lahaayeen sidoo kale in la ilaaliyo oo aan marnaba lagu xadgudbin iyo in aan ka wada shaqeyno sidii Hirshabeelle maamulkeeda loo garab istaagi lahaa